Assalaamu calaykum. Mararka qaarkood ayaa waxaan la kulmaa macluumaad aan keligood si gaar ah looga hadli karin maadaama ay kooban yihiin. Marka waan isku soo daray oo iyagoo mushakal ah ayaan soo gudbin. Waa kuwan marka 10 macluumaad oo kooban oo aan soo aruuriyay. Octopuska ama akhtabuutka oo af Soomaaliga lagu dhaho faramagogo ama faramuge ayaa wuxuu ka mid yahay xayawaanada badda ku nool oo leh astaamo cajiib ah. Faramugada ayaa waxay leedahay 3 wadnood oo dhiigga jirkeeda u qaybiya. 2 ka mid ah wadnayaashaas ayaa waxay dhiigga siiyaan qoombiyaasha faramugada oo gills Englishka lagu dhaho oo u sahla xayawaanada badda inay oksijiinta ay neefsadaan kala soo baxaan biyaha badda. Halka wadnaha saddexaad ee ay leedahay uu xubnaha kale ee jirka dhiigga siiyo. Dhiiggeedaas oo leh midabka buluuga. Faramugada ayaa waxay kaloo ka mid tahay xayawaanada ukunta dhala, iyadoo noocyo ka mid ah ay halkii mar dhalaan 100,000 oo ukumood markii ay dhashaanna ay aad u yaryar yihiin. Tusaale ahaan faramugada nooceeda ugu waaweyn markay gacmahooda kala bixiyaan 4 mitir ayay ka dheer yihiin, halka dhashooda marka ay ukunta ka soo baxaanna ay cidida faraheena ah ka yaryar yihiin. Dad badan ayaa waxay u maleeyaan in ilkuhu lafa yihiin, laakiin waa ay kala duwan yihiin ilkaha iyo lafuhu. Inkastoo ilkaha iyo lafuhu jirka ay isku dhow yihiin waxa ay ka samaysan yihiin oo labaduba waa adag yihiin oo cad yihiin, waxaana ku jira macdanta calciumta ayaa haddana la kala soocaa. Waxyaalaha aad ku garan kartid inay kala duwan yihiin ayaa waxaa ka mid ah in ilkuhu markay jabaan aysan iskabi karin, halka lafuhu markay jabaan ay awood u leeyihiin inay kabmaan. Markii ay laftu jabto ayaa unugyada laftu tarmaan oo meeshaas buuxiyaan, laakiin ilkuhu awooddaas ma leh. Waxa kale oo lafuhu uga duwan yihiin ilkaha ayaa waxaa ka mid ah in lafaha uu ku dhex jiro dhuuxaas oo laga sameeyo dhiigga jirkeena ku jira. Sanadii 1927 Professor Physics-ka ka dhiga jaamacadda Queensland oo ku taala Brisbane, Australia ayaa wuxuu rabay inuu ardadiisa tuso in walxaha qaarkood oo u dhaqma sidii inay wax adag yihiin aysan adkayn ee ay yihiin dareere. Waxa uu sameeyay tijaabo oo waxa uu soo qaatay nooc ka mid ah daamuurta, waxaana uu dhex geliyay dhalo hoos ka daloosha si loo arko daamuurtu marka ay soo dhacayso. Daamuurtaas ayaa ku dhawaad 10 sano ay ku qaadatay inay dhulka ku soo dhacdo dhibic ka mid ah. Ilaa hadda waa socotaa tijaabadaas iyada oo dhulka ay ku dhaceen 9 dhibcood oo daamuurtaas ka mid ah tan iyo 1927 markii la bilaabay. Dhibicdii u dambeysay ayaa waxay dhulka ku dhacday Abriil 2014 iyada oo 13 sano dhibicdaas daamuurta ahi sii socotay. 1940 waddanka Australia waxaa ka dhacay shil diyaaradeed. 2 diyaaradood oo ah nooca ay ku tababartaan ciidamada cirka Australia ayaa iyagoo hawada ku jira isku dhacay. 2 diyaaradood oo isku nooc ah ayaa waxaa la dhihi jiray Avro Anson. Haddaba 2 diyaaradood midkood ayaa kor kaga dhacday midda kale. Bayloodiyadii diyaaradda hoose ku jiray ayaa ka booday diyaaraddii, laakiin bayloodkii diyaaradda kore saarnaa ayaa waxa uu arkay inay diyaaraddiisu si caadi ah u shaqayn karto oo uusan khasaaro badan soo gaarin, oo burburka badankiisu uu gaaray diyaaradda ka hooseysay. 2 diyaaradoodna ay isku dhageen. Markaas ayaa waxa uu isku dayay inuu diyaaraddiisii soo dejiyo iyadoo diyaaraddii hoose ay weli ku dhagan tahay, waxaana uu sameeyay degitaan degdeg ah ama emergency landing oo waxa uu ku soo degay beer agtooda ahayd, isagoo awood u yeeshay in 2 diyaaradood ee isku dhaganaa uu si caadi ah u soo dejiyo. Diyaaraddii kore ayaa muddo kadib markii la dayactiray duulimaadyadeedii si caadi ah u bilowday. Honeybot ants waa nooc ka mid ah quraanyada oo qaybtood ay cuntada ku kaydiyaan calooshooda, taasoo aad u weynaata. Markii ay cunto yaraan dhacdo ayaa loo soo doontaa inay soo celiyaan oo afka ugu shubaan quraanjada kale ee baahan. Shaqadooda kaliya ayaa waxay tahay inay wax kaydiyaan oo dhaqdhaqaaq badan ma sameeyaan. Mararka qaarkood ayaa quraanyooyin kale ay soo weeraraan si ay u kaxaystaan quraanjadan wax kaydisa oo ay uga shaqaystaan, cuntadii hore ugu jirtayna ay u cunaan. Dhagaha iyo sanku waxay ka mid yihiin xubnaha jirka ee aan korniinkoodu joogsan. Daraasado fara badan oo la sameeyay ayaa waxaa la ogaaday in ragga iyo dumarku markay weynaadaan ay dhaguhuna koraan, inkastoo si tartiib ah ay u weynaadaan. Markii la cabiro dhagta dadka waaweyn ayaa waxa ay ka weyn yihiin dhagahoodu intay la ekaayeen markii ay dhalinyarada ahaayeen. Waxaa keenay bay leeyihiin saynisyahanadu in dhaguhu ka samaysan yihiin carjow oo soo jiidashada dhulkuna ama gravity-gu ay keento inay dheeraadaan, maadaama carjowdu oo cartilage Englishka lagu dhaho ay jilicsan tahay. Dadka gacmaha ama lugaha laga gooyo ayaa mararka qaarkood waxa ay dareemaan gacantii ama lugtii laga gooyay
iyagoo maskaxdoodu u malayso in weli meesha ay joogto gacantii ama lugtii laga gooyey. dadka xubnaha laga gooyey ayaa 60% la yiri sidaas ayay dareemaan. xayawaanada qaybtood ayaa iyaguna isku daya inay isticmaalaan lugtii laga gooyey iyagoo u maleeya inay weli meesheeda joogto. waxaa iyaguna jira in dadka xubnaha laga gooyey qaybtood ay xanuun ka dareemaan xubintii laga gooyey oo iyadoo aan ku ool ay dareemaan in xanuun ka hayo. waxaa xanuun sidaas oo kale ah lagu arkay dad waxyaalo kale laga gooyey si dadka ilkaha laga saaray oo muddo kadib xanuun ka dareemay iligii ka maqnaa, iyo dumar naasaha laga gooyey markii cudur kaga dhacay oo muddo kadib xanuun ka dareemay. bisaduhu waxay leeyihiin 18 farood, min 5 farood ayay ku leeyihiin lugahooda hore, halka lugaha dambe ay ku leeyihiin 4 farood. bisadaha qaarkood ayaa waxay ku dhashaan faro intaas ka badan, laakiin sida caadiga ah 18 farood ayay leeyihiin. goroyada ayaa waxay dhashaa ukunta ugu weyn xayawaanada. sanadii 2008 ayaa goroyo Sweden lagu hayay waxay dhashay ukun culayskeedu ka weynaa 2 kiilo iyo bar, taasoo mawsuucada Guinness ee la geliyo waxyaalaha rikoorka jabiya u aqoonsatay inay tahay inta la og yahay ukuntii ugu weynayd ee shimbir ay dhasho. intaas nooga jooga barnaamijkii maanta. intii aan mar dambe kulmi doono nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaah.